kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka warar gooruna soo gaaray waxa ay sheegayaan in ilaaladii xildhibaanada iyo senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaarkood caawa taliska ciidanka xoogga uu ka kaxeystay maadaama ilaaladooda ay kamid ahaayeen ciidamada xoogga ilaa hadda lama yaqaano sababta ilaalada looga qaaday mas'uuliyiin ka tirsan labada gole oo aan la hadalna waxa ay sheegeen in caawa dayacan yihiin oo ammaankooda ay baqdin uga qabaan ururka al-shabaab in dhibaatooyin ay uga yimaadaan ama dhinacyo kale oo saameyn amni ku yeelan kara xubno kamid ah labada gole ayaana la hadlay waxaan ku hormaraynaa senator Nuuro Faarax Jaamac oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya senator Nuuro soo dhawow bal waxaad faahfaahin naga siisaa warkan sheegaya in ilaaladaadii ay ka haysteen taliska ciidanka xoogga maamo waan salaamayaa adarsaala iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed maamo waxa uu saddex ilaa iyo muddo wiigii aan iminka ka soo gudubnay waxaa socotay arrin ah ciidamada anaga ilaalada noo ah xildhibaan ahaan ayaa waxaa laga wacayay taliska ciidamada Kiila Baydhaba inkastoo ha qaadatee maalin gelinkeed ama marar maqribkiina loo soo daayo wiigan oo dhan arrintaasi wayna haysatay xalay markay ahayd saacadu 12 habeenimo qofka soo yaqaan ama 6 saaco habeenimo ayaa la soo wacay ciidankii ilaalada aniga shakhsi ahaan ahaa inay Kiila Baydhaba soo galaan ilaa saacada aan kula hadlayo ciidankii ilaalada waxay ku sugan yihiin Kiila Baydhaba waxaana la amar lagu siiyay inaanay bixi karin marka ma ogaatay sababta loogu yeeray ما أوجين ما هذا لا حديدنا إلى هي تراكيش في لبيدبنا وحي لو شيء يعني إن تليها حب الدلك ويدي ما بيشي كران عيدا ماذا كسبان في لبيدبا إذا كنا نوجنا وحكي لو نوجنا مش توي وقابك مركو رعد إلى لاهانت وقرت مرة على النظام كيلو بهنا ها ما أنا شرعي هان مدام أنا هاي شرعي دشين وحن مرة سنينا وح شرعية waxaana ilaalinayay waxay hayeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo ka tirsan ciidamadeena saxda ah waxay mareen dhammaan shuruudihii looga baahnaa daraad oo yoom arbaca ahayd waxa ugu dambeysay oo ay yiraahdeen waxa laga qaadayaa dhiig kiina waa laga qaaday ma garan karo marka xalay 12 iyagoo mas'uul Soomaaliyeed ilaalinaya oo maxay hayeen in yiraahdo ka soo dhaqaaqa oo aamir alla cid fog iyo mas'uuliyad cid iska saartay amnigiisa midna aan jirin ما أقتهي أما مكسوق أرتي ترى أنت مسؤول إلى لوجيري ما في لبيدبا واحد تجي نارنتي 4 3 مركي وارين إلى لبيدبا أو نسيبوني اللي نبضن أو كتير البرلمان كسرالك الصومالية أقل كسر يبلع شعب كهذا لما أنت دوحي كعبنيين إلى لبيدبا أو لك حيستي إلا حدنا أنا يستطيع أي وده أنا وذن بنسوق ما في لبيدبا marka intee la ekeedeen tiradina maama way badnaayeen xildhibaanada meesha joogay labada aqal bay ka koobnaayeen xildhibaano badan hadda aan kula hadlayo waxa area anigu aan deganahay degan xildhibaano labada golaha dhammaantood caawa bilaa istaaf cid ilaalinaysa ilaahay mooye ma jirto marka ama golasha shacaba ka tirsanaada ama aqal sare xubno idan la mid ah oo ilaalada wali ay u joogaan oo xooga dalka ay kamid yihiin ma jiraan ma ogina ma anagu hadaan xildhibaano si gaar ah loo naasujinaya jibin كل واحد أبغى مجرد حلوانات دولة الفدرالية الصومالية دمانتود إنه ولا إستاذ كودي أي كود حريصين عاوضة عن كل هذا اليوم القرآن كان وحن ما قرن كرنا مثلية حوق الدلك يا شيء كيس كريم لما دحويناها لوبنا هاي تلية حوق إذا ما درين يهاي بعد بحياة أمريكا إلا هذا حلوانات وحيلة جاور الزين أرين كان كل عضي ميل أمر جودي لجودي هي أنا يشيلين حكومة دي أي كتر صناعية مركا ما قرن كرنا تلية حوق الدلك وانوها ويني ما نفيل حبت دي استاف قاعد أنا شرعي جنوب وجهتين وبحيثه يسوي يسكول عليه عن كذي قرنك هذا إذا ما هلا إذا أنا بهان هيدا وسيادو وقتان باهي إذا كدرن إني يجري كرتو إن سببك اللوجو يري إن وقت كوبن لو باهي هاي محد إن عادي قصيص ولا حرير ويسن ما أنا إذا كنا قرنك وحنربنا هاي تليه وبيهاي مدحوينها تمرد في الصوماليات حدنا وحى أن ربنا هاي تليه أدوية وأحد تليه فوق الدلك إنه إذا ما يسووا وياي ما قرنا إنه ما مدحوينها أمر كيم بدا تليها إذا كفوق بيسجل كلجي وحنا ما مشرع ما قرنا إنه أنا جبهنا قدرا مسؤولين قرن ومدة الصومالية اللي بانوا إنه بلا إسقاط نقران أو أمر جودي إذا لنا إنسان يجري
ما قرن كرمامو باهي كدرن إنه شفتو حلمان هذه قرن كاين بلا إسقاط نقدان عاو ما قرن باهي كدرن مامو دلك كشرتين شفتو وضيعات دhanka amniga ah ee caawa dareemaysan ma la wadaagteen aqal ka sare guddoomiyashooda ama guddoonkooda iyo madaxda kale maamo waxaan ogahay aqalka sare haddaan ka soo qaado waxaan ogahay habdowlihii aqalka sare senator cabdikaasi ilaaladiisii inta hadda waxay ku xidhaysan tahay maxay haysay fiila baydhaba marka maadaama madaxdii aqalka sare oo habdowlihii aqalka sare uu ku jiro ciidankiisii xidhaysan yahay ma garanayo cid la dhaafay maamo ama cid looga dacwoon karo ma garanayo laakiin waxaanu u diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maadaama uu yahay taliyaha ciidamada inay caawa xildhibaanadii qaranka soomaaliyeed ee isaga soo doortay ee dowladda maanta aynu harsanayno soo dhisay inay caawa bilaa istaaf yihiin intaasoo keliya ayaan rabnay inaan u sheegno madaxda dowladda senator nuuro faarax jaamacad waa mahadsan tahay adaa mudan hooy aad u mahadsan tahay senator nuuro waxaa isna toos leenka ugu jira xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaane soo dhawow bal ma ogaan karnaa sababta ilaaladaada xubnaha adiga ka mid tahay golaha shacabka ka tirsan aqalka saraba loo kaxaystay iyo waxa aad dareemaysaan والله رسالة horta waa ka xunnahay annaga odig waxaad godob ah oo aan dareemayno oo aan ka ahayn nidaamkan hadda soo baxay ee baryahan xildhibaanada ilaaladoodii hala soo xareeyo la leeyahay oo bari maqal iyo maanta iyo ficil ahaan xildhibaanada u wada saameysay baa hadda jirta tirakoob ayaa markii hore lagu sheegay kolleyba annaga nin walba ilaaladiisa siduu uga warhayo markii askarta hadda tirakoobna ay aadaan subaxdii marka saacado kadib inay kusoo laabtaan hawshii ama raggii ama xildhibaanadii mas-uuliyiinta lagu maaragtay tixgelinayay in amnigooda dawladda ay sugayso oo sidaana awalna maaragtay go-aankii ay iyagu ku yimaadeen ilaaladu uu ku salaysnaa mid golaha shacabka kolleyba annaga qayb ahaan markaa nalagu wargeliyey ee la yidhi ninka xildhibaanka ah waxa uu leeyahay laba maaragtay ciidan oo markaasi ciidamada qalabka sida miduu doono ama booliska ama nabad sugidda ama maxaa la dhihi jiray militariga uu ka wadan karo marka xildhibaanada qaabkaas ayay kusoo xusheen sida markaa kolleyba loo kala culus yahayna miisaan ahaan iyadoo dawladda tixgelinayso wixii markaa amnigiisii ama xildhibaanka lagu maartay loogu talagalayna si sharci ah wasaaradda amniga xataa qayb bay ka qaadanaysay oo dar gaar ah oo xataa inta loo boondeeyey lacag inay bixiyaan xildhibaanada ayaa jirtay $30 calaa labis sidaasna ay mar weliba maartay ay u ahaayeen ilaalada xildhibaanada la socoto mid wasaaradda amniga ka diiwaan gashan askariga iyo qorigiisa taliska uu ka tirsan yahayna uu ka diiwaan gashan yahay markii tirakoobkii dambe hadda ee la sameynayay wax badan saxitaan lagu sameeyey ciidamadana waxay ahaayeen haddana ciidamo la saxay oo kuwii shaqada si rasmi ah markaasi loo ogaaday inay yihiin in loo sameeyey maaragtay diiwaangelin cusub iyo maaragtay nidaamka ayaga in kootadooda ay ugu dhacayso bisha marka la gaaro $1,000 inay sidaa maaragtay hawsha ay ku socotay hadda tii wax hadda bedelay iyo nidaamkii hadda soo kordhay haddana in dib maaragtay mar kale ayaa loo tira koobayaa iyo maaragtay soo xaadiriyaan la yirina xildhibaanadii annagoo waxba aanan ka qabin haddana nidaamkii aan raacayno hadda askartii markii ay subaxdii iyaga ay tagaan oo tirakoobkii haddii ay maaragtay ahaan lahayd in la hubiyo oo qoraallo oo dadkii hadda ay la joogeen iyaga noo soo xaqiijiye la dhihi lahaan waxbay ahaan lahayd xataa qoraallo annaga ayaan ku darnay maaragtay qaarkeedna oo si aan ugu cadayno inay hawshii ayada loo idmaday nala wadaan askartaasi ay caadi ilaaladeedii iyaga caadigaa weli inay ka tirsan yihiin laakiin meeshaan ka sugaynay in haddana arrintaasi maaragtay naloo maaragtay tixgeliyo sidii horeyba ay u ahayd hadda waxaan soo korodhay in ilaaladii sida aroortii ayaga loo waday oo ayaga tirakoobka ay u aadeen inay soo talinayaan in meel ma u dhixi kartaan halkiina ku xarooda in halkaasi xildhibaano badan cabashadaasi inay kasoo gaartay
oo hadday annagana aan qaybteena naga soo saamaysay oo hadda waxa nagu soo kordhay ay yihiin marka la weydiiyana sarkaal weliba oo ayaga ee markaa horjoogo u ahaane amarkani xaguu ka soo baxay marka la yidhaahdana tariskuu ka soo baxay ayuu leeyahay marka hadda arrintan waa arrin u baahan inay maaragtay soo farageliyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya sidaa ah ciidanka qalabka sida maanta ninka mas-uuliyadda ugu weyn ee maanta noo saaran waxa ay ku dhacday in xildhibaanadii la dayaco xilli ay odayaashii soo xulay oo ayaga ay halis maanta ay ku jiraan ergooyinkii sidaas oo kale wax la laayay wax xildhibaanaduna aad ogtihiin inay yihiin dadka ugu dhibaatada badan ee wadanka marka ciidanka loo maartay laga yimaado maanta inta badan ayaga maartay wixii kasoo gaaray la ogyahay marka ma garan karno annaga tallaabadan cusub waxa ay saldhigeeda iyo ujeedkeeda maartay uu yahay booliska ayaa bedelayana waa maqalnaa laakiin waxay ahayd marka la siiyo ilaalo oo booliska ama meeshay doontaa ka timaadee ama asluubtaba ha noqotee markaa kadib in la yidhaahdo maartay kuwii kale militariga ahna militarigii xeryahooda muxarooda hadda waxaa hadda aan maarta arkayna laakiin waa waxa runtii naga yaabshay mana garan karno macnaha iyo ujeedka maarta ee ka dambeeya ka shaksi ahaan adiga ilaaladaada ma lagu wargeliyo oo warqad ma soo gaartay oo dalab ah in ciidanka loo baahan yahay hadee horta soomaalidu waxay tiraahdaa cudur beereley waa isku cawado xildhibaano qaarkooda hade waa sida ay ayaga awalba maartay loo kala tuntun roonaa qaar iska diiday baa jiro oo laga dhihi karin maartay haddii aan maartay la isweydiiyey war aniga meel maartay oo aan hadda ilaalo la-aan aniga inta aan amnigeygii maartay aniga la dayaco oo aan raalli kaga noqonayo ma jirte qaar yiri maartay iyo qaar nidaamkii wax kastaba bal ha ahaadaan ay u nuglaadeen oo sidaas kartii ayaga ay intay u direen maartay tirakoobkii kadibna laga ceshtay macalqoryahooda laga xariistayna waa intaasi un baan udhexaynaa si kastaba ha ahaatee arrin oo aada runtii hadda xildhibaanada aada moodid iyo in ay haddii sidata qaabka u noqdo in xukuumaddu oo arrintan iyada laga rabo inay amniga ciidamada sugayo maartay xildhibaanada iyo mas-uuliyadda dawladdu ina iyada kusoo noqonayso ayna keenayso awal mucaaradad oo xoog leh oo xukuumadda kaga imaanaysay dhinacyo kala duwan haatanna inaad xildhibaanadiina inay garood ay ku sameeyaan oo xukuumadda amnigii guud ee dalka oo awalba aada maartay ugu socotay maartay dhinacyo kala duwan wax iyaga lid ku ah haddana in xildhibaanada in la kiciyo moraalkoodana la dhaawaco si ay markaasi tallaabooyin kale oo tan ka duwan ayagana inay ku dhaqaaqaan ayay dhiirigelinaysaa marka inay xukuumadda arrintan soo farageliso oo aanan keenin wax oo ay xukuumadda iyo golaha shacabka ama baarlamanka isku dhacmaatay oo ka yimaada cawaaqibsamaha dhoodii in dawladdana saameyn ku yeelato inay arrintaasi ay imanin sidii looga maaragtay gaashaaman lahaa ama in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya soo farageliyo ama inay xukuumadda ra-iisul wasaare kheyre uu soo farageliyo ayaan arrintan aada ugu dareynaynaa hadduu ilaahay raalli ka dhaho waaya xildhibaan ma wax xildhibaano gaar ah lagu bartilmaameysanayaa mise waa wax guud oo amar guud oo aada ogaateen waa amar guud laakiin amarkaa guud sidiisaba markaa wax guud ay soo baxaan wadanka waad ka warhaysaan maanta hubka waxaa wada haysta dad aanan weliba sharci ahaan ee aan dawladda ka diiwaan gashanayn hubka wadanka yaalla iskaga maaragtay warbixin mayno shirkado ayaa wadanka ayaga isu hubeeyey iskooda dawladduna ay ku og tahay hawshooda ku wata ayaa jiro haddii xildhibaanadu ayagana la yidhaahdo reerihiina iyo qabaa'iladiina sida shirkadahoo kale oo ama idinka iska maaragtay samaysta waxa idinka idin ilaaliyo hataa waa afla garanayo laakiin dawladdii in ayada mas-uuliyad iyo waxa ay ku joogaan maantay amisom ahaan marka wadanka lasoo wada qaado inay xarumaha dawladdu ay ilaaliyaan ammaanka maaragtay mas-uuliyiinta dawladdu ay ilaaliyaan ay ka tahay qodob oo marka laga gudbo ciidamada qalabka sida soomaaliyeed hataa amisom
hadda in la yiraahdo xildhibaanadu ay kuma jiraan tiradaasi in go-aan ama mas-uuliyiinta sare iyo hoggaanka dalka ayaa ayaga keliya maaragtay ee amnigooda qayd laga dhigayaa marka inta kalena ayaga maaragtay wixii soo baxa nasiibkooda kulle waa arrin aniga aanan arrintaasi aan aada uga xunnahay waxaad la filan kara maaragtay runtii ma ayan ahayn taliyaha xoogana hadda waa nin dhalinyaro oo cusub oo loo hanweynaa oo weliba aada rajo weyn laga qabo weli anaga aanan isaga aanan lahayn wax hadda keligiisa go-aankaasi qaadan karo sidaasi u mug weyn inayan noqon karin laakiinse ma doonayno inaan maaragtay seeflagoodiyaal aan noqono laakiin waa arrin u baahan in wax laga qabto oo arrintaan degdeg inay dowladda usoo farageliso iyo saan kuu sheegay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare khayr ugu dambeyn in mas-uuliyiinta qaranka xubno ka mid ah ay u dayacnaadaan amar ka soo baxay taliska xoogga oo ciidamada laga qaato maxay muujinayaan wallahi horta waxa waaye layskuma jira juun baynu nahay maan macsi laga sheegi gudbarigii gaxaanka ay ku caanbaxday kulleyba amniga guud ee dalka qofka sibaa maaragtay amnigiisa sida isaga ay u gaartaba ayaa wax badan lagu kala duwan yahay xildhibaanada qaar baa bulad buruufyo wato qaar baa maaragtay ciidan hadday doonaan tiknika heli karo oo ayaga inay maaragtay daba dhigtaan qaar baa maaragtay oo iyaga dabajeexyo maaragtay ayaga ay heli karaan wadankaas sidii berigii awalba awoodaha loogu kala duwanaa saameynteeda ayaa weli siyaabo kala duwan adigaad u dareemi kartaa haddana annaga magaca guud ee xildhibaano saan u wada dhanaanahay halkaas waxa inoo ah amniga guud ee xildhibaanada inay dowladdu si mas-uuliyadi ku jirto iyada ay xil adag iskaga saarto xildhibaanadu wajiyo fara badan bay ku wada maaragtay yimaadeen dhinaca welibana lagama wada ah dadka dad isku wada si maaragtay qaar awoodoodii iyaga ay heli karaan haddii xataa si dowladda oo iyada ay sidan ciidamadooda ay ku ceshaan inaysan iyaga ay ka maarmi karaan oo ay heli karaan awood u gaara oo ayaga inay la soo baxaan oo ayaga amnigooda ku sugaan laakiin kuwa awalba qaar maaragtay ayaga xaaladooda ilaahay ogaa ayaa inta fara badan waxaa meelaha iyaga intay kusoo dhacaan mushkiladda ugu weyn ee laga yaabo inay ayaga waxa ay qabaan yacni runtii ay noqon kartaa mid gun weyn abuurta calaa kulli xaal sikastama ahaatee saan kuu sheegay waaye arrintani waa arrin u baahan haddii xataa nidaam iyo tirakoob iyo si kastaba oo ayaga loo baahan yahay ama xataa la rabo in booliska sida ayaga hadda hadalhaynta ay tahay in amnigooda lagu wareejiyo waa inay amniga booliska marka ayaga ay gacanta ku dhigaan in markaasi ilaaladooda wixii military ah xeryahooda ay aadaan haddii kala shahaadee waxay noqonaysaa booliska maaragtay xaggiisa waxba yani ha ka filan intii ku joogtayna hadday military tahayna waa kaa kaxaysanay adigay ku jirtaa waay taa micnaheeda waxa waaye mas-uulka amniga ayay ka kujiaysaa taasna inay qaban karto maaha xildhibaanada iyo guud ahaan intii dowladda iyada mas-uuliyadaasi looga baahnaa inay aada maartay iyada amnigeeda ugu sugto baaqeenaana wuxuu gaari doonaa amisom oo iyadana sidaas oo kale iyadana kaalintii loogaga baahnaa keliya iyadana inaysan ku ekaanin inay kaarayaasheeda iyo maaragtay madaafiicdeeda iyo maaragtay iyo hubkeeda culus meelo kooban iyo dad kooban keliya inay ku ilaaliso wadanka ama laysla wada noqon doono dad si guud ah dowladnimada iyada harkeeda maaragtay ku nabadgala ama yacni inay ayagana iskaga tagaano sidii awalba la ahaan jiray nin walba adiga iyo meesha adiga aad maaragtay awalba maaragtay adiga aad ku tiirsano sidaana maaragtay nidaam dowladeed noqon maayo dee waxay markaa noqonaysaa in jabhado maaragtay oo kale in dhaqankeeni haddana loogu noqdo sidii shalay lahaa maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya daawade haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan si aad ula socoto wararka degdega ah iyo sheekooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee ka jira Soomaaliya waxaad rukuman kartaa channelkeena adigoo subscribe saaraya gambaleelkana furanaya wararkeena warbixinadeena la gareynaya
wixii aragti ee aad ka qabto war ama warbixin halkan aan soo galinana waxaad hoos noogu reebi kartaa aragtidaada mahadsanid